Bismillaahi Raxmaani Raxiim kulanti wacan saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijkan dhacdooyinka caalamka oo aan ku soo qaadan doono haddii Rabbi uu ogolaado dagaalo culus oo mar kale ka qarxay Khaliijka iyadoo Mareykanka iyo Sacuudiga ay weerareen xulafada Iiraan ee Ciraaq. Muxuu ahaa qorshaha Cumaan oo Iiraan ay diiday? Sidoo kale waxaan ku soo qaadan doonaa khubarada qaramada midoobay ayaa ogaaday in diyaarado nooca Pyongyang 727 oo ay wakaaladda wararka ee Reuters horay uga xirtay shabakad ganacsi oo uu leeyahay qandaraasle military oo Mareykan ah ay daabulayeen calooshood u shaqaystayaal la sheegay in hub iyo diyaarado aan duuliye lahayn oo loo waday ciidanka gurmadka ee degdega ee Suudaan iyo dagaalkii sokeeye ee Suudaan. Waa kuma milkiilayaasha diyaaradahan, halkaas ayay u dhasheen calooshood u shaqaystayaashan la sheegay, iyo Iiraan oo toddobaadyada soo socda helaysa gantaalo difaaca cirka ah oo garabka laga rido oo Shiinuhu sameeyay. Maxaa ka jira in Iiraan ay u baahan tahay inay dib u haweysato kadib bilihii dagaalka socday? Kaydka difaaca cirka ee Iiraan oo aad u ballaaranaya, iyo Shiinaha iyo Iiraan oo baaraya wadooyin dhulka ah oo hubka lagu daabulo. Qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaan idin haynaa, goordhow ayaan idinla wadaagi doonaa. Ha yeeshee intaan u gudagalin faahfaahinta qodobadaas oo idil, waxaan ka codsanayaa haddii muuqaalkan uu kaa soo horbaxo fadlan like noo saar, la wadaag asxaabtaada. Haddii aadan ka mid ahayn bahdeena fadlan nagu soo biir oo janaalkeena Hogaal Media rukumo oo subscribe dheh. Ka qayb qaado kor u kaca janaalkeena. Waa 29 July sanada 2026. Magacaygu waa Hashim. Kusoo dhawow mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka caalamka. Aan ku bilownay dagaalo culus oo mar kale ka qarxay Khaliijka iyadoo Mareykanka iyo Sacuudiga ay weerareen xulafada Iiraan ee Ciraaq. Haddaba Mareykanka ayaa qaaday duulaankiisii ugu horeeyay ee dhinaca cirka ee Bariga Dhexe tan iyo markii uu toddobaadkii hore hakiyay ololihii duqeymaha. Weeraradaas oo si wadajir ah u fuliyay Sacuudiga Carabiga ayaa lagu beegsaday koox hubeysan oo Iiraan taageerto, kuwaas oo ku sugan dalka Ciraaq. Isla waqtigaasna dowladda Iiraan ayaa diiday qorshe ay Cumaan soo jeedisay oo lagu maamulayo marinbiyoodka muhiimka ah ee Hormuz. Iiraan waxay sheegtay in rasaas ay ku furtay maraakiib marayay marinka Hormuz iyo saldhigyo military oo Mareykanka uu ku leeyahay dalka Urdun. Arrinkaasi waxaa mar kale sare u qaaday qiimaha saliidda, iyadoo dib u soo cusboonaanshaha dagaalada iyo burburka dadaaladii ee diblomaasiyadeed ay muujiyeen in aan la filayn in si degdeg ah loogu soo afjaro dagaalka ay Mareykanka iyo Israa'iil ay bilaabeen bishii Febraayo. Waayahay. Haddaba Washington iyo Riyadh waxay sheegeen in weeraradooda wadajirka ah lagu bartilmaamsaday maleeshiyaad ay Iiraan taageerto oo ku sugan Ciraaq. Taas oo jawaab u ahayd baa la yiri weeraro diyaarado aan duuliye lahayn ee droneska loo yaqaano lagu qaaday xarumo saliid oo ku yaala dalka Sacuudi Carabiya. Haddaba ciidamada Popular Mobilization Force marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano PMFA ee Ciraaq oo ah maleeshiyaad awood badan oo Iiraan taageerto isla markaana qayb rasmi ah ka ah ciidamada ammaanka Ciraaq ayaa sheegay in ugu yaraan 20 xubnood lagu dilay halka 32 kalena ay ku dhaawacmeen weerarada ay si wadajir ah u fuliyeen Mareykanka iyo Sacuudiga, kuwaas oo lagu beegsaday baa la yiri saldhigyo dhowr ah oo ku yaala ama ku kala yaala dalka Ciraaq. Haddaba weerarkan ayaa noqday tallaabadii ugu weyneed ee Mareykanka uu ka qaado Bariga Dhexe tan iyo Jimcihii la soo dhaafay, markaas oo madaxweyne Donald Trump si lama filaan ah u hakiyay baa la yiri duqeymo socday muddo 13 maalmood ah kadib markii saraakiisha ciidamadu ku taliyeen in ololahaasi uu gaaray halkii loogu talagalay. Hagaag. Weeraradan wadajirka ah waxay khilaafka sii ballaarin karaan maadaama ay Sacuudi Carabiya oo ah dal Sunni ah si toos ah ugu lug yeeshay ama ugu lug yeelatay dagaal ka dhan ah maleeshiyaadka Shiicada ee Iiraan ee taageerto. Tani waa markii ugu horeysay intuu dagaalka socday oo Sacuudi Carabiya si cad u shaacayso in ay si wadajir ah ula dhaqmayso ama ula dagaalamayso Mareykanka. Dowladda Ciraaq oo hogaaminayaan siyaasiyiin Shiico ah isla markaana ka mid ah dowladaha yar ee xiriir dhow oo military iyo diblomaasiyadeed la leh labada Mareykan iyo Iiraan ayaa isugu yeeray baa la yiri shir degdeg ah. Muddo dheer ayay Washington ku cadaadinaysay dowladda Baghdad in ay xakamayso maleeshiyaadka ay Iiraan taageerto, balse isku dayo hore oo arrinka lagu doonayay ayaa horseeday baa la yiri qalalaase gudaha ah.
saacado yar ka hor intaan Mareykanka iyo Sacuudiga weerar ku qaadin Ciraaq, ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in difaacooda cirka ah uu fashiliyay weerar lama filaan ah oo Iiraan damacsaneed in ay ku qaado ciidamada Mareykanka ee gobolka. Ciidamada cirka Urdun ayaa iyaguna sheegay in ay hawada ku burburiyeen 5 gantaal oo Iiraan soo riday. 3 ka mid ah 4 askari ee Mareykan ee bishan la dilay ayaa lagu dilay dalka Urdun, halka oo saldhigyada Mareykanka ay noqdeen bartilmaameedka ugu weyn ee weerarada Iiraan. Haddaba ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iiraan IRGC ayaa sheegay in dhowr gantaal oo ballistic ah ay ku garaaceen saldhigyo militari oo Mareykanku ku leeyahay Urdun, isla markaana ay weerareen baa la yiri 3 markab oo shidaal sida kuwa oo isku dayay in ay maraan marinka Hormuz iyagoo adeegsanaya waddo aysan Iiraan ogoleen. Waa tahay. Haddaba muxuu ahaa qorshaha Cumaan ee Iiraan ay diiday? Dagaaladu waxay dib u qarxeen bishan kadib markii uu burburay heshiis ay bishii Juun gaareen Mareykanka iyo Iiraan ka oo lagu doonayay in lagu soo afjaro dagaalka. Khilaafka ugu weyn wuxuu ka dhashay baa la yiri cidda maamuli doonto marinka Hormuz oo ah marin biyoodka ugu muhiimsan dunida ee lagu dhoofiyo ama laga dhoofiyo shidaalka iyo tamarta. Haddaba Iiraan waxay ku adkaysanaysaa in iyadu ay tahay cidda maamusho marinkaas, isla markaana ay xaq u leedahay in ay ka qaado maraakiibtaas ama maraakiibta maran lacag adeeg ah. Cumaan ayaa toddobaadkan soo bandhigtay qorsheed ay taageereen Khaliijka ama dalalka Khaliijka ku bahoobay ka oo lagu soo jeediyay in maamulka marinka si wadajir ah loo wadaago iyadoo maraakiibtan ay bixinayaan khidmad adeeg oo ikhtiyaar ah. Hase yeeshee sarkaal sare oo Iiraan ah ayaa Reuters u sheegay in Tehran ay qorshahaasi ay ku gacan saydhay kuna tilmaantay mid aan macquul ahayn. Sarkaalku wuxuu sheegay in maamulka oo kala bar ay Iiraan yeelato, kala barna Cumaan ay yeelato uusan dan u ahayn Iiraan, inkastoo Tehran ay Cumaan u aragto dal daris ah oo xiriir wanaagsan la leh. Iiraan waxay rabtaa in si buuxda ay u maamusho marinka ay maraakiibta ka galaan ama ka soo galaan Hormuz, halka ay qayb ahaan u maamusho jidka ay kaga baxaan. Mareykanka ayaa maraakiibta kula taliyay inay isticmaalaan marin u dhow xeebaha Cumaan halkii ay ugu dhawaan lahaayeen biyaha Iiraan. Ciidamada badda ilaalada kacaanka Iiraan ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegeen in weli si buuxda u maamulaan marinka Hormuz, isla markaana ay si adag uga jawaabi doonaan waxa ay ku tilmaameen faragelin sharci darro ah oo militari oo Mareykanka uu ku hayo marinka. Dagaaladan oo dib u bilowday ayaa mar kale kor u qaaday qiimaha saliidda iyadoo halkii foosto oo kor u kacay in ka badan $3. Waa kororkii ugu horeeyay tan iyo toddobaadkii hore, waxaana saliidda Brent mar kale lagu kala iibsanayay baa la yiri wax ka badan $87 halkii foosto. Qiimaha saliidda ayaa toddobaadkii hore si ku meel gaar ah ugu gudbay $100 halkii foosto, waana markii ugu horeysay tan iyo bishii May. Hase yeeshee toddobaadkan wuxuu dib ugu soo dhacay heerarka 80 ama $80 kadib markii dhammaadkii toddobaadkii hore la ogaaday in madaxweyne Donald Trump uu hakiyay ololihii duqeymaha. Waayahay, haddii aan u gudubno qodobka yaga xiga. Khubaro ka tirsan qaramada midoobay ayaa ogaaday in diyaarado nooca Pyongyang 727 oo ay wakaaladda wararka ee Reuters horey uga xirtay shabakad ganacsi oo uu leeyahay qandaraasle militari oo Mareykan ah ay daabulayeen calooshood u shaqaystayaal, hub iyo diyaarado aan duuliye lahayn ee droneska loo waday ciidanka gurmadka degdega ah ee Suudaan Rapid Support Force marka magaceeda la soo gaabiyana loo yaqaano RSF. Arrinkan ayaa lagu sheegay qabyo qoraal warbixin qaramada midoobay oo la filayo in si rasmi ah loo daawaco bishan September. Natiijooyinkan waxay bixiyeen baa la leeyahay xog dheeraad oo muhiim ah oo muujinaysa kaalintii ay diyaaradahaasi ku lahaayeen taageeridda RSF oo ah xoog ciidan oo baarayaasha qaramada midoobay ku eedeeyeen in ay xasuuq ama isirsifeen afka qalaadna loogu yeero genocide ay ka geysteen gobolka Darfur ee Suudaan. Warbixintu waxa ay leedahay guddigu wuxuu 4 ilo oo lagu kalsoon yahay ka helay xog muujinaysa in diyaaradahani ay daabuleen dagaalyahano ka tirsan RSF, calooshood u shaqaystayaal iyo qalab militari oo ay ku jiraan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, droneska iyo hub. Warbixintu waxay sheegtay in xogtan laga helay 2 qof oo goobjoogayaal ah oo ku sugnaa magaalada Nayaal oo ah xarunta ugu weyn ee ciidamada iyo saadka RSF ee Darfur, iyo sidoo kale fariimo ay soo direen 2 dal oo xubno ka ah qaramada midoobay inkastoo aan faahfaahin dheeraad ah laga bixin. Reuters ayaa baaritaan ay daawacday 15 Luulyo ku raacday 3 diyaaradood oo Pyongyang oo duqoobay
kuwa oo ay maamulayeen shirkado la xiriira Stephen Schwartz oo horey uga tirsanaa ciidamada gaarka ee Mareykanka US Army Special Force isla markaana muddo dheer qandaraasle u ahaa dowladda Mareykanka. Baaritaanka Reuters waxa uu muujiyay baa la leeyahay in diyaaradahani ay ka duuleen garoon diyaaradeed oo ku yaala Chad una kala goosha xarumaha saadka ee RSF ay ku leedahay Suudaan, Liibiya iyo Soomaaliya. Waayahay ugu dambeyntii haddii aan eegno qodobka yaga ee ugu dambeeya, Iiraan oo toddobaadyada soo socda helaysa gantaalo difaaca cirka ah oo garabka laga rido oo Shiinuhu sameeyay. Iiraan ayaa la filayaa in toddobaadyada soo socda hesho dufcadii ugu horeysay oo ka mid ah ilaa iyo 400 oo gantaal oo difaaca cirka ah oo garabka laga rido, kuwaas oo uu sameeyay Shiinaha sida Reuters u sheegay 3 ilo xog ogaal ah ama xog ogaal u ah heshiiskan. Tallaabadan ayaa imaanaysa baa la yiri xilli Tehran ay dib u dhis ku sameynayso awoodda difaaca kadib bilo dagaal oo ay ku jirtay ama ay kula jirtay Mareykanka. Waayahay iibsigan oo qiimihiisu u dhaxeeya baa la yiri 60 milyan ilaa 70 milyan oo dollarka Mareykanka ayaa ka mid ah dadaaladii ugu waaweynaa ay Iiraan ku xoojinayso nidaamkeeda difaaca cirka ee masaafo gaaban tan iyo markii uu qarxay dagaalka ay la gashay Mareykanka iyo Israa'iil. Dagaalkaasi wuxuu banaanka soo dhigay daldaloolo weyn oo ka jiray awoodda Iiraan ee difaaca saldhigyada militariga iyo kaabayaasha muhiimka istiraatiijiga ah. Sida ay sheegaan ilaha xogtan bixiyay, heshiiska wuxuu dhigayaa in la iibsado 300 ilaa 400 nidaam oo gantaalada difaaca cirka ay ciidamada lugta qaadi karaan, kuwaas oo ay ku jiraan baa la yiri gantaalada Shiinuhu sameeyo ee lagu magacaabo QW-12 iyo FN-16. Iiraan ma u baahan tahay in ay dib isku hubeyso kadib bilihii dagaalka. Ilaha xogtan bixiyay waxay codsadeen inaan magacyadooda la shaacin maadaama arrinkani uu yahay mid xasaasi ah. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Iiraan kama aysan jawaabin codsi looga dalbaday in arrinkan ay ka hadasho. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Shiinaha ayaa sheegtay wararka la xiriira arrintan gabi ahaanba waa kuwo aan sal iyo raad lahayn. Shiinuhu wuxuu mar walba door muuqda oo ka qaataa horumarinta nabadda iyo soo afjaridda colaadaha. Shirkadda Beijing-based Zhongqing Bioshan Group oo ah shirkadda ay hoos tagto Zhongqing Bioshan International Investment iyaduna kama aysan jawaabin email Reuters ay u dirtay Talaadadii oo lagu weydiinayay faalo. Iiraan waxay u baahan tahay in ay dib isu hubeyso kadib bilo dagaal oo Mareykanka iyo Israa'iil ay ku beegsadeen xarumo la xiriira barnaamijkeeda gantaalada, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska iyo nidaamyada difaaca cirka ah. Dhanka kale, Iiraan waxay uga jawaabtay weeraradaas iyada oo riday gantaalo balaastiga iyo diyaarado drones ah. Ma dhabba in kaydka difaaca Iiraan uu aad u ballaaranayo. Soo gaarsiintan boqolaalka nidaam gantaaladan garabka laga rido waxay si weyn u kordhin doontaa baa la leeyahay kaydka hubka difaaca cirka ah ee masaafada gaaban ee Iiraan. Waxay sidoo kale muujinaysaa in xiriirka militari ee u dhaxeeya Shiinaha iyo Iiraan sii xoogaysanayo. Si kastaba ha ahaatee, ilaha xogtan ayaa ka digay in inkastoo heshiiska la saxiixay, haddana jadwalka keenista tirada saxda iyo faahfaahinta kale ee fulinta ay weli isbedeli karaan. Sida qorshaha lagu sheegay, dufcada ugu horeysa waxaa laga soo qaadi doonaa magaalada Urumqi ee galbeedka Shiinaha, kadibna waxay sii mari doonaan baa la yiri dalka Bakistaan iyaga oo u socda Iiraan. Muuqaalka like noo saar, la wadaag asxaabtaada, aragtidaadana qaybta hoose ee faallooyinka noogu reeb. Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay.